بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أصحابتي قالقة وإذ السلامي ملك استأجوكتان كسو دواذا ميهمي جنال ساكو حاد لقيب صنايا قراعدي ساكي caruurta ilmaha u sameynaya insha Allah codsigeeda wuu soo batay masha Allah waana idin soo badinaya walaalahayga qaaliga ah waana jeclahay waana ku faraxsanahay wax walba aad iga soo codsataan insha Allah waxaad la qaybsanayaa quraacdi saaka iskuulka inta caafimaad ku soo kacday Allah u siyaadi inta xanuun dareemaysa iyo caajiska Allah ka qaado walaalahayga qaaliga meel kasta aad joogtaan waa idin jeclahay waan isku soo duceyneynaa insha Allah hadda waxaan halkan iigu diyaarsan cabitaanka saaka ilmaha u shiiday waa qara kiigis waxba kuma darsano waa qara bis aan soo jarjaray qaraha ayaa u shiidayaa insha Allah walaalahayga qaaliga ah waan idin mahad celinayaa sida quruxda badan ay ugu xiran tihiin commentiyadiina quruxda badan dhiirigelintiina ducadiina aad ayaa ugu mahadsan tihiin waan idin mahad celinayaa insha Allah had waxaan ku wada shubtay qarihii meesha asxaabteyda qofkoo subscribe u ahayn channelka subscribe ha dhaho gambaleelka ha taabto asxaabta cusub ee igu soo biirtay waa idin soo dhaweynayaa channelka waa channelkiina soo dhawaada aad ayaan u mahadsan tihiin lalayga qaaliga hadda waxaan ku soo darsaday sokortii wax yar sokor ayaa ku soo darsaday kama soo badinin qaraha asiga macaan waxaan ku darsanayaa galaas biyo ah oo isku shiidi doonaa insha Allah mashiinka codka ayaan ka sii xirayaa sidaas ayaan u shiidayaa insha Allah marka aan shiito waa soo miiranaa cabitaanka kabacdi waxaan guda geli doonaa quraacdeydii kaleeto iyo waxyaabaha kaleeto aan diyaarsanayo cabitaanka diyaar u yahay halkan waxa ii yaalo hal gasac oo tuna fish ah tuna fishka isticmaalayo waa xilwa saliid ayuu leeyahay waxaan ka soo miiri doonaa saliida waxaan ku soo shubtay saxan insha Allah waxaan soo qaadanayaa qaando waxaan rabaa inaan kala bixbixiyo malayga sidaas ayaa u kala bixbixi doonaa insha Allah waxaan ku sameysanayaa slice sandwich yar ayaan rabaa inaan sameysto oo ilmaha uga dhigayo quraac ay iskuulka u qaadanayaan walaalahayga qaaliga cabitaanka waa aragteen quraacdane waan idin tusayaa waa rooti yar oo fudud halkan waxaan ku sameysanayaa baradho aan warwareeg u soo jarjaray wax yar cusba ku soo daray baradhada halkan ku sii shiilanaya baradhada subaxii hadaadan waqti u hayn habeenkii jarjaro biyo ku dhaxrid ayadoo nadiif ah fridge-ka gasho subaxii diyaar ayay ku ahaanaysaa howlaha isdhehaysa subaxii kama gaari karta bili-aadan aad tahay waa daahi kartaa habeenkii sii diyaarso fridge-kaada sii gasho baradhada xalan sii diyaarsada ana qaraha xalan sii jarjartay weel baaquliyaan ku daboolay fridge-kan sii gashtay hadda waxaan halkan ku shubanayaa mayonnaise halkaas ku shubana insha Allah mayonnaise isleeska mari rabaa baradhadana waan ka soo bixiyay dabkii halkaas ayaan ku soo diyaarsaday halkan waxa igu diyaarsan cheese aan hoolay because subaxi waqti uma helaysid waan sii hoolay baaquligaas igu jira subaxi waqti uma helaysid waa cararaysaa ilmiya diyaarinaysaa adigii naftaada inaad wax u qabsatid oo soo cibaadaysatid kadib jikadii soo gashay ilmihii waqtiga kugu sii dheeraan karo marka habeenkii waxaan idin kula talinayaa waxyaabaha qaar isdhay subaxi waa ku daahaysaa habeenkii sii diyaarso slice markaa mariyay mayonnaise waxaan ku saaray malaygi sidaas ayaan waxaan u saarayaa baradhadii aan warwareega u soo shiilay oo jibsiga bajiya camal u soo shiilay waxaan ku darsan doonaa hadda wax yar oo tomato sauce ah kadibna waxaan saarayaa cheese ayaa sidaas u saaraya insha Allah marka sidaas cheese-ka ugu shubo cheese-ka wax yar uu barafkan ka soo bixiyay wuxuu uu qabow yahay waxaan soo qaadayaa insha Allah slice kaleeto waxba aan marinin waxaan soo qaadanayaa saxan waa ku diyaarsanayaa birtana waan sii shiday walaalahayga qaaliga ah way isii kululaanaysaa sidaas ayaa u marinaa haddana xabadii labaad waxaan soo mariyay mayonnaise marka sidaas mayonnaise gees walba uga gaarsiiyay waxaan soo qaatay malayga markaan kala bixiyay wuxuu ii noqday furfur saas u kala baxbaxaya sidaas ayaa u kala gargaarsiinaa gees walbeeto mayonnaise-ka
maasha Allah waa sandwich yar oo qatar ah. Ilmaha isleeskaas ayaa waxaa uga dhigi kartaa 10 nooc, wuxuuna uga fiican yahay waxyaabaha dukaamanka laga soo gadaayo, uga fiican yahay macmacaanka badan ilmaha uma fiicno. subaxii markaa usoo kacdaa u diyaarsan kartaa ilmaha waxaada, waa laga fiican yahay waxyaabaha dukaanka laga sii gadaayo. walaalahayga qaaliga ah ku dadaala, ilmaha mar waa ku farxad geli kartaa oo wiigii hal mar ama 2 mar waa uga gadi kartaa, waa ku farxad geli kartaa. laakiin waxaa aad u wanaagsan inaa wax adiga gurigaada ugu samaysatid, aad siisatid. birta nadiif ayay ii tahay, laakiin waxaan soo qaadanayaa masasax ama mara yar oo saliid leh, sidaas ayaa u marmarinaa insha Allah. rootigii sidaas ayaan u saaranayaa. mashiinta xoog ina iskula qabatid waaye, waayo waxaa rabtaa rootiga inuu isku dhego soomaahan. hadda waxaan sameysanaa haddana xabadii labaad intuu kan iigu sii jiro, waan yara boobsiinaa kaamirada walaalahayga qaaliga ah, isla sidii aan u sameynayaa. markaa sidaas aan usoo mariyay malaygii, waxaan saarayaa haddana baradhadii. maasha Allah waa quraac ilmaha aad ugu wanaagsan, waana quraac yar oo fudud ee cuni karaan maasha Allah, mid yar iyo mid weynba. sidaas ayaa ugu saarayaa. haddana xabadii saddexaad intuu kan iigu sii jiro ayaa midka kaleeto sii diyaarsanayaa. walaalahayga qaaliga ah, waxaa idin tusayaa xabadan insha Allah. kabacdi markaan soo dhameysto ayaa isku soo laabaneynaa. sidaas ayaan haddana u mariyay malayga. waxaan saaraa isla sidii baradhada ayaan saarayaa insha Allah. maasha Allah quraacdan caruurta aad ayay uga helayaan insha Allah. isla sidii yaanyada ayaan kusoo shubi doonaa haddana insha Allah. waxaan saaranayaa cheese-kii, waxaan saari doonaa isleeskii. waan soo dhameysanaa walaalahayga qaaliga ah, waa isku soo laabaneynaa insha Allah. markaan soo dhameysto, waan soo dhameystay walaalahayga qaaliga ah, waa kaasaa diyaar ayuu ii yahay rootigii. haddana waxaan baxsanayaa xabadii labaad. tartiib waa inaa u bixisaa insha Allah. hadda waxaan saaranayaa midka kaleeto, sidaas ayaan usoo saari doonaa insha Allah. kan intuu iigu sii jiro kan ayaan sii jarjarayaa. waxaan soo qaadanayaa birta biisada lagu jaro, taas ayaan kusoo jaro doonaa insha Allah. wayba calaamadeysan tahay, dhexda leh sidaas wax yar uga marsiineysaa, wuu calaamadeysan yahay maasha Allah. haddana isla sidii xabada kale sidaas ayaan usoo marinayaa. sakiinta ama midi hadday haysatid xitaa waa mari kartaa, dhib malahan. walaalahayga qaaliga ah, hadda xabadii kale ay meesha iigu sii jirto. isleeskaygii diyaar ayuu ii wada yahay, meelaan kusoo diyaarsaday. hadda waxaan shubanayaa cabitaankii, waxaan ku shubanayaa caagadahaas. sidaas ayaan ugu shubanayaa insha Allah cabitaanka. isleeskin waa kaasaa diyaar ayuu ii yahay. waxaan soo qaatay bacdan aluminiumka. islees haddaa ugu ridid ilmaha kama qaboobayo. quraacdii markii la gaaro bareega iyagoo qandaca ayay cunayaan. bacdaas aluminiumka ayaa halkaas ugu xirayaa. sidaas ayaa ugu soo laabi doonaa bacda. waa inaa meel kasta dhab uga siisaa eena aaryo gelin insha Allah. sidaas markaa ugu soo duubo, waxaan soo qaadanayaa baaquliga. waxaa idinku tusi doonaa quraacda 2 baaquli. ha isdhihin baaquli 2 meel u kala baran ma haysti. wax walba aa haysato ayaa wax ku sameysan kartaa walaalahayga qaaliga ah. wax walba aa haysato ayaa wax ku sameysan kartaa. ha isdhihin waxaan ma haysid ha sameynin, ha isdhihin wax walba waa awoodaa inaa sameysid insha Allah. sameey, dadaal. waxaan soo qaatay buskud abuwalad, halkaas ayaa uga ridayaa. waa kaasaa baaquligii aana kala barnayn insha Allah. sidaas ayuuna ugu soo diyaarsaday. hadda waxaan idinku tusayaa baaquligan kaleeto. haddii aadan haysanin aluminiumka xitaa dhib malahan, kan ayaa ugu sameysanaysaa. maalin kale ayaa soo gadanaysaa, dhib malahan walaalahayga qaaliga ah.
wax walba waxay tahay muhiimadda in aad samaysid ma ahane in ha isdhihin kan ma haysid ha sameynin markaad soo gadid kan ayaa sameynaysa ha isdhihin horay u socda walaalahayga qaaliga ah dadaala caruurta ku dadaala naftiina ku dadaala insha Allah ilaahay la garab galo sidaas markaa ugu ritay islayskii hadda waxaan furayaa qaybtii kaleeto waxaa ugu ridanayaa buskudkii dhib malahan haddaa buskut haynin fruit haddaa haysatay waa ugu rida kartaa insha Allah buskudka bedelkiisa fruuda ugu rida kartaa wax yar oo snacks bisaal rabaa oo canuga wax yar oo isaga madadaalo walaalahayga qaaliga ah waxaan rabaa in aan uga jawaabo gabadh walaashay oo su'aal isoo weydiisay oo dhahday waxaa nala soo wadaagtaa buugga sida aad jadwalka ugu qoratid abaa macaanto aniga jadwalka waxaan ku qortaa maalinta saacadda aan soo kacay wixii maalintaas aan qabanayo haddaan rabo inaan meel aado teeda kaleeto waxaa muhiim ah jadwalka in uu horta kuu degsan yahay maalinta meel aadaysid oo meel u danaysanaysid oo suuqa kasoo adeeganaysid waa suuqa xago townka oo kaleeto haddii aad rabtid inaad soo adeegatid budgetkaada suuqa qudaarta aadaysid suuqa hilibka aadaysid waxaas dhan waa inaa budget horta kow aa leedahay cuntooyinka aad karinaysid waa inay budget kuu leeyihiin guriga shaqadiisa oo kaleeto waa inuu budget kuu leeyahay maalintaa dah bedelaysid maalintaa jikada hagaajinaysid maalintaa guriga carfinaysid oo daahmanka iyo waxa dhan aad ka bedelaysid maalinta armaajada dharka hagaajinaysid wax walba waa inay budget ay ku leeyihiin markaas ayuu jadwalka kuu fududaanayaa kow horta budgetka kow soo degso naftaada budget u deji caruurta budget u deji gurigana waa inuu budget leeyahay aniga waxaas hore u qortay waa arkaysaana u maleyna halahaasoo baal waa jadwalka guriga oo keli ah insha Allah waa kaasa halahaas dhan ayaan kasoo qoray jadwalka guriga marka sidaas aa u diyaarsado jadwalka cuntada xitaa aan karinayo jadwalka cuntada ta iskuulka waxa dhan waa kaasa sidaas ayuu iigu diyaarsay waqtigii subaxii aan soo kacayo marka sidaas aa u diyaarsado kabacdi ayaan waxaan sii qortaa maalin walbo waxaan qabanayo iyadoo cuntadii ay diyaar ii tahay waqtiga aan rabo inaan kasoo kaco waqtiga aan rabo inaan qadada kariyo cuntada kariyo inaan meel aado inaan ilmaha wax u qabto nafteyda waqtigaan siina waqtiga quraan akhrisana waqtiga wax akhrisanayo marka waxaan sameeyaa maalintaas markii aan qoro waan saxaa halihii aan qabtay habeenkii wixii aan qabalnino waan qaldaa si aan biri u saxo oo biri isugu diyaariyo in aan waxba ka qaldin walaashay qaaliga waxaan u maleynayaa inaan ka faa'iido in badan ilaahay subxaanahu wa ta'aalaane waxaan kula dardaarmayaa nafteyda iyo naftiinaba dadaal iyo taqwada Allah insha Allah halkan waxaan kusoo diyaarsaday quraacda saaka waa Weetabix waxaan soo jarjaray waa tufaax aan kor uga soo shubay waxaan soo qaadan doonaa jab moos asna waan ku jarjara doonaa insha Allah quraacda ilmaha saaka waa halahaas waa Weetabix iyo tufaax iyo mooskaas waxaan ugu soo darayaa caano kulul ayaan soo diyaarsaday caanaha ayaa sidaas ugu darayaa waa arkaysan caanaha way kulul yihiin qiic ayaa ka baxooyo caanaha ayaan sidaas ugu darayaa insha Allah waxaan ku dari doonaa malab ma ku darin wax sokor wax yar malab ayaa ugu darayaa bakeeriga caanaha saasa ugu soo diyaariyay canug walba halahaas siisid maasha Allah calooshiisa u buuxda sidaas ayuu iskuulkiisa ku aadaa ma cunin wax dhanaan ah wax dhibaayo wax uu hadhow caloosha ku xanuunayso wuxuu cuno quraac yar oo fresh ah anigana waa kaasa biyahaygii kululaay aan sanjabiilkii dhanaanta ku soo darsaday aan cabaaya maasha Allah aniga ilmaha isku cunto manihin aniga jadwalkayga gooni waaye waan idila soo qaybsanaya insha Allah waana layga soo codsada waan soo wada walaalahayga qaaliga ah waana mahadsantihiin sida ila socotiin subax wanaagsan khayr ayaa idin rajeynaya fiidiyowga share dheh la wadaag asxaabtaada kaleeto commentiga hoos noogu